الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي أوائد السلامي سنة كدب محاربة إنا إذن لو ذاقو طبان قضبوات مهم وطبان قضبات كوي ليسيد فرحت إلهي سبحانه وتعالى ورالي كاغن قنايو نفت هذا إرالي كاغن قنايسو ككو هريري سنة فرحت وأبوري كرتيد إسلام مركاسن إرالي كاغن قنايان وطبان قضب وأنا آدو سوكو كوبي وطبان قضب oo haddii aan qodob uga hadli lahaa ay noqon lahayd barnaamij dhan laga samayn kari lahaa insha Allah ka faa'iideyso wacan. Qodobka koowaad waxaa waaye inaad ku dadaashid cibaadaadka waxay leeyli u tahay nafta waxayna bedeshaa habdhaqanka iyo suluuka qofka. Tusaale ahaan salaada waa rukni ugu weyn islaamka tawxiidka kadib waana shayga ugu wanaagsan ee bedela nafta iyo dhaqanka qofka sidoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadan uu ku leeyahay وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة وحي ربتا فحشيغا إيا منكركا. صلاة وحي كندي في ساقفكا إنو سميو وحيابا حنحنوران. سيدو كلا عباداتك وحاكميد أهصونك أو جديديس أوين أي تهاي نفتا إن لغو برباريو عبسيد إلهي سيدو إلهي سبحانه وتعالى وكلي هاي آيادا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى هذا هاي كوي على رسول رميه وحال إذنكو قرأ يعني وحا واجب لإذنك جديكي إناد صنتان سيدا واجب لوغا جديكي وماذيه إذنك هريه لعلكم تتقون وحاد مذنتين إناد دور سنتاني أما إناد عبستان إذا سبحانه وتعالى كعبستان. soonka wuxuu ka mid yahay waxyaabihii ama cibaadaadkii ay samayn jireen ummadihii hore inta uusan waxyiga soo degin ka hor. Waxaa wanaagsan inaad soontid sunanka haddii aad awoodid isla markaasna aad tahay qof dhalinyaro ah oo caafimaad qaba. Cibaadaadka waxaa ka mid ah zakada waxay nafta ka ilaalisaa bakhiilnimada xoolahana way barakeysaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay isaga oo la hadlaaya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. سيدو كلا حجكي وعلمت وحسامين وين كلي هاي بربارين تنفتا الله سبحانه وتعالى وحولي هاي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أولو لجيدو حجك وبلوين معلوم ولا يقانو فمن فرض فيهن الحج يعني قفك اللازمة أما إسكو لازمية أما بلوين كاس حج دائمة فلا رفث كوحرها مقدمات الجماع وحيابها للسمايو ولا فسوق فسق مجرو ولا جدال ضد مجرتو في حج كالحديثة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات سيسو فسيرا وحولهاي بر الحج محاواي بارنمد حج وحاواي لين الكلام هذا الجلعسان هذا الدبعسان عن حمان كجري وإطعام الطعام إلا قوذيو راشينك حجك قفك وحو كبر بارنايا إنو إسك إلالي هذا لذا حنحن كون ددارو مرولي بإنو كهضلو هذا لذا وناكسان قضب كلابات وحاواي إنا يلتي دورتي يومي يعني أذكارتي إنا أخرسيت أذكارتي مركي قريقة لكلايو مركي لك بحايو زوريقة مركي لكلايو مركي لك صوبحايو مركي لسيحانايو أذكارتي كلبكي لأخريو أذكارتي الصبحي لأخريو إنا دائمتي سيدو كلا إنا أخرسيت القرآن كريم أخرينت القرآن وحي نفت كل يضحي سامين وناكسن دادك مسلمين تأه باسم سامين القرآن حتى وسامين أي دادك أنا المسلمين تأهين qur-aanka akhrintiisa wuxuu bedelayaa habdhaqanka iyo suluuka iyo nolosha qofka oo dhan. Faa'iidooyinka ay leedahay qofka inuu qur-aanka akhriyo amaba uu barto amaba uu xifdiyo ama uu laazimaba waxaa ka mid ah oo maskaxdiisa aad wanaagsanaata markii uu u baahdo inuu wax xifdiyo si fudud ku xifdin kara markii uu u baahdo wixii uu xifdiyay inuu soo celiyo si fudud u soo celin karo. waxaa ka mid ah qofka inuu dareemo deganaansho iyo farxad. sidoo kale qofka qur-aanka akhrinayo ma murugoodo walwal ma dareemo. faa'iidooyinka waxaa ka mid ah qofka qur-aanka akhrinayo inay u fududahay inuu luqadda carabiga si fudud ku barto isla markaasna uu uga hadli karo si fudud. aba aakhiro la heli doono ayaa ka weyn kana qiimo badan
oo ay ka mid tahay waalidiintaada in yani taajul waqaar in loo xiro adiga madaxaada ay ku helaan. Ya allah, maxaa ka weyn. qodobka saddexaad waxaa waaye inaa cabtid biyo kugu filan. faa'iidooyinka ay leedahay inaa cabtid biyo kugu filan waxaa ka mid ah inay ilaalinayaan caafimaadka maqaarkaaga, waxayna qayb ka qaadanayaan dhaldhalaalka wejiga iyo jirka. sidoo kale waxay ilaalinayaan nadaafadda afka, waayo maanta oo dhan haddii aadan biyo cabin afkaaga uu qalalo waxay keenayaan ur ay dhibsan karaan dadka markaas kula nool ama kaa agdhadhow. sidoo kale waxay qayb ka qaataan shaqada uu qabanayo habdhiska dheefshiidka. sidoo kale qofka waxay ka caawinayaan inuu miisaanka si fudud iskaga ridi karo. sidoo kale waxay kugu saacidayaan caafimaadka kelyahaaga inay wanaagsanaadaan. sidaasi la mid ah haddii aad cabtay intii aa u baahneed ka badan, iyadana waxay keenayaan dhibaato. qodobka afaraad waxaa waaye inaa cuntid cunto isku dheelitiran, taasoo isugu jirta fitamiin, borotiin, carbohydrate iyo dhammaan cunooyinka jirka ugu baahan yahay oo dhan. faa'iidooyinka ay leedahay inaa cuntid cunto isku dheelitiran waxaa ka mid ah waxay yareynaysaa fursadaha qofka uu ugu dhici karo cudurrada lala noolaado sida sokorta, dhiigkarka iyo waxyaabaha la midka ah. sidoo kale waxay kuu suurtagelinaysaa inaad keedsatid tamar kugu filan aad hadhow dib u isticmaali kartid. sidoo kale waxay ka qayb qaadanaysaa shaqooyinka maskaxda ay qabato iyo daakira xusuusta oo aad u wanaagsanaato. sidoo kale waxay ka qayb qaadanaysaa inaa noqotid qof awood leh oo shaqo marka uu qabanayo si fudud aanan ku daaleynin, tabartaro aanan dareemin. waxaa kale oo ay ka qayb qaadanaysaa dhaldhalaalka maqaarka, waxayna ka ilaalinaysaa mashaakilka ama cudurrada ku dhaca maqaarka. sidoo kale tinta aniga haddaa dumar nahay aada uga cabanaa maahan oo tinta naga daadanayso inuu bixeenin. marka aa cuntid cunto isku dheelitiran oo wax walba ka kooban waxay kaa saacidaysaa inaa heshid timo qurux badan dhaadheer insha allah. cuntada isku dheelitiran waxay qayb ka qaadanaysaa qofka inay ku ilaaliso miisaankiisa qaabkii loogu talagalay, inaysan hoosna uga dhicin si saa'id ah, korna uusan uga badanin miisaankii loogu talagalay. sidoo kale waxay qayb ka qaadanaysaa qofka inuu u koro si isla siman, yacni qof aanan kala korin, maskaxdiisa jirkiisa ay isla socdaan. dad waxaa arkay aada u buuran, yacni cayilkooda uu ka batay xadkii loogu talagalay, maskaxdooda iyo fikirkooda iyo habdhaqankooda markaa fiirisidna ma ahan wax isku dhigma. cuntada isku dheelitiran marka waxay qayb ka qaadanay jirkaaga iyo maskaxdaada inay isku si u koraan. qodobka shanaad waxaa waaye inaa samaysid jimicsi joogto ah. jimicsigu wuxuu faa'iido u leeyahay jirka. faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu yareeyaa fursadaha qofka ee ugu dhici karaan cudurrada lala noolaado, dhiigkarka, sokorta iyo waxyaabaha la midka ah. jimicsigu wuxuu qayb ka qaataa quruxda jirka iyo muuqaalka qofka inuu noqdo qof qurux badan. sidoo kale wuxuu yareeyaa fursada qofka uu ugu dhici karo cudurka kansarka. sidoo kale wuxuu qayb lixaad leh ka qaataa xusuusta iyo shaqada maskaxda ay qabato. sidoo kale wuxuu siinayaa qofka awood uu ku qaban karo shaqooyin fara badan isaga oo aanan dareemin wax daal ah. nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif. mu'minka awoodda leh ayaa ka khayr badan kan daciifka ah, ilaahay agtiisana lagaga jecel badan yahay. awoodda halkan la tilmaamayo keliya ma ahan awoodda jirka, waa awoodda caqliga, fikirka wanaagsan, habdhaqanka, waxtarka aa bulshada u leedahay. keliya uma baahna ama looma baahna inaa noqotid qof murqihiisa waaweyn yihiin gudahana faaruq ka ah, yacni inaa ahaatid qof isku dheelitiran oo meel walba ka dhammaystiran. qodobka lixaad waxaa waaye inaa heshid hurdo kugu filan. waxay qayb ka qaadanaysaa dhaldhalaalka jirka iyo firfircoonida maskaxda. sidoo kale waxaa wanaagsan qofka inuu horey u hurdo xilliga salaada cishaha kadib si uu uga faa'iidaysto gelinka dambe ee habeenkii. diinteenana sidaas ayay nagu boorinaysaa, nagu gubaabinaysaa, naguna dhiirigelinaysaa inaan sameyno. nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay laa tajtamicu bacda salaati alcishaa'i ilaa lidalab alcilm. yacni salaada cishaha kadib ha kulminina sheeko iyo waxyaabo maala yacni ah
ha u kulminina ilaa inaa cilmi baranaysaan ma ahane. cilmigaas aa baranaysid hadduu sabab u noqon karo hadhow inaa hurdada ku daahdid salaada ay kaa tagto looma baahno, sax ma ahan, waa inaa joojisid. culimada qaaraa saas dhahayo. sidoo kale xilliga dambe waa xilli aad u barako badan, qofka uu wax badan ku qabsan karo. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallamna uu noo sheegay barakadeeda sida uu xadiidka ku dhahayo, buurika liummati fii bukuriha. qodobka 7 waxaa waaye inaad wax akhrisid. wax akhriska faa'iidada uu leeyahay qof waliba uu ka dheragsan yahay, sheegitaan badan uma baahna. wax akhriska wuxuu kor u qaadaa caqliga iyo garaadka qofka, wuxuuna u keenaa isbedel dhab ah. faa'iidada wax akhriska uu leeyahay hadba waxay ku xirantahay waxa aa akhrinaysid, nooca ay yihiin iyo qaabka aa u akhrinaysid. qodobka 8 waxaa waaye howl markaa qabanaysid inaad sugtid. ilaahay subxaana watacaala wuu kugu jeclaanayaa. dadka markaas aa howsha u qabanaysid ama aa la qabanaysid way ku jeclaanayaan. soomaalida waxay ku mahmaadaa meel ka muuqo ama ka maqnaaw. mar walba waa inaa niyada ku haysid howsha aa qabanaysid ilaahay dartiis inaa u wanaajisid, waayo waxaa ku gaaraysaa jacaylka allah subxaana watacaala. qodobka 9 waxaa waaye inaad ka qayb qaadatid acmaasha khayriga ah. taas micnaheeda ma ahan inaa haysatid dhaqaale fara badan oo aa ku fankareynaysid acmaasha, laakiin waxaa heli kartaa waxyaabo kale oo fara badan maadaama aad tahay qof dhalinyaro ah oo awood leh. waxyaabahaas waxaa ka mid ah qofkii xanuunsan inaad soo booqatid ee ugu horeeyaan qaraabadaada. sidoo kale inaa xariisid dadka qaraabada kula ah. sidoo kale waxaa ka mid ah tacaaduf inaa la samaysid dadka fuqarada ah iyo masaakiinta. waxaa ka mid ah maalkii aan hadda sheegaynay oo kale inaad maalkaaga haddii aad tahay qof ilaahi subxaana watacaala dhaqaale uu siiyey aad uga qayb qaadatid, sida ilmaha agoonta oo kale inaa u samaysid meelay tagaan, inaa maalmaha farxadda ciida inaa kala qayb qaadatid. sidoo kale inaad sadaqaysatid, sadaqaad gaari ah inaad samaysid, sadaqo oo markii aad dhimatid kadib kuu sii soconayso. maxaa ka mid ah masaajid la dhisaayo kale inaa wax ku tarsatid, inaad dad wax bartid, inaad dhul waqaftid iyo waxyaabihii la midka ah. qofka markuu ka qayb qaato acmaasha khayriga ah ee aan soo sheegnay muxuu muqaabil u helayaa? ilaahay subxaana watacaala haddii uu wax qabanayo wuu waafajinayaa, haddii ahaan lahayd shaqo, haddii ahaan lahayd waxbarasho, wuxuuna gaarayaa raali ahaashaha allah subxaana watacaala. sidoo kale wuxuu dareemayaa inshiraax ama raaxa nafsiya, farxad, sacaada laa yusaf. qodobka 10 ee ugu muhiimsan waxaa waaye wixii ilaahay subxaana watacaala uu kuu qoray inaad ku qanacdid, raalina aad ku ahaatid. waxyaabaha ilaahay kuu qoray marka aad ku qanacdid waxaa ku helaysaa deganaansho iyo ilaahay subxaana watacaala inuu raali kaa noqdo. mar walbana waxaa wanaagsan nimcooyinka aa haysatid inaa fiirisid, aadan fiirin waxyaabaha kaa maqan. allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuhaa. waxyaabaha aa haysatid markii loo fiiriyo waxyaabaha kaa maqan inay iska yaryihiin aa laga yaabaa. nimcooyin fara badan aa haysataa, ee ugu horeyso caqliga, karashada, iimaanka, islaamnimada. dad badanaa tamaninaya waxyaabaha aa haysatid inay helaan. shirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.